بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا ليال الحمد لله إلى بمهله ما أنت وحن دورنا إن صوبا لنا موضوع عادي مهمة أو لا يراهدو barnaamijka miiska wada hadallada in dadku ay soo fadhiistaan oo xiwaar ay sameeyaan. marka waxaa la isweydiin karaa ujeeddada barnaamijkan muxuu yahay. ujeeddada barnaamijkan waxa weeye in miiska wada hadallada oo u dhaxeeya dhammaanba bulshada dhexdeeda, ururada diimaha ee ka jira geyigeenna ama Kenya ama East Africa, ururadaas oo qaarba qaarka kale ay gaalaysiinayaan ama bidcaynayaan ama ay qolada kale ay ku tuurayso marka la weydiiyo intaasoo cillooyina iyo intaasoo wax dhimaala iyo intaasoo qaladaado ay ku jiraan, iyagoo laga yaabo kuwa kaleba intaa in la eg inay ku jiraan iyaguna oo baxara. markaas ay qolo waliba marka iyadu jaaniska hesho ay afka furanayso oo qolyihii kale ee dhaleeca dusha kaga tuurayso. qolyahaasi inay isxamilaan maadaama isku wadan yihiin, isku meel joogaan, dad wada luqadooda iswada yaqaan ay yihiin oo wada maaragtay luqada ay ku hadlayaan ay mid tahay, inay isxamilaan oo ay miiska wada hadallada soo fadhiisan karaan iyaga oo fikir ahaan kala duwan, inay suuro gasho oo qolada kale sabir iyo u muujiso adkaysi. qodobka saddexaad oo u dambeeya barnaamijkaas wadahadalka ama miiska wadahadalka loogu magac daray yaa barnaamijkan wata. ma urur gooniya baa wata, ma qolo gooniyaha wadata, ma qabiil gooniyaha wata, ma yacni itijaahe waxaa wata dhallinyaro Soomaaliyeed oo ka xumaaday sida wadciga ummaddu uu yahay, weliba indheergaradka uu yahay, oo dadka ay giddi kala wada jeedaan. ururada diiniga keliya maaha ee xataa ay kala jeedaan kuwa siyaasiga ah, dhallinyarada lafteeda, qabaa'ilka laftooda ay kala jeedaan, iyo maaragtay salaadiintooda iyo kuwa u taliya ay kala jeedaan, oo meeshii maaragtay anaaniya ay ka jirto dhallinyaradii iyo dumarkii iyo ururada bulshada dhammaan qaybahooda ay kala wada jeedaan. dadkaas ka xumaaday arrintaas oo ka dhiidhiyey oo doonaya in bal wuxuun is-afgarad ah ama wuxuun isxamilida iyo isu dulqaadasho ay macnaha sameeyaan oo miiska wada hadallada la wada fadhiisto. alra'yu wara'yu alaakhar in la dhegaysto, qofkan muxuu qabaa, kan muxuu qabaa, kan muxuu qabaa, kan muxuu qabaa, oo maaragtay aan laysku maaragtay tuurin unoon dagaal iyo aysan noqon arrintu khilaafe, bal laysla maaragtay lays arko oo la wada hadlo.